maanta waxaan ka hadlaynaa buug aad u qiimo badan, buug kugu saacidi kara inaad maalgashato real estate ama wax loo yaqaano hantida maguurtada ah. Buuggan qoraa wuxuu ciwaan ugu dhigay Investing in Income Properties: The Big Six Formula for Achieving Wealth in Real Estate. Buuggan wuxuu ka hadlayaa sida hantida maguurtada ah loogu dhisi karo maalgashi joogto ah oo dakhli kuu soo saara. Qoraagu wuxuu sharxay in dadka hodanka noqda aysan ku tiirsaneyn mushahar oo keliya, balse ay dhistaan hanti soo saarta lacag bil kasta. Buuggan wuxuu diiradda saari doonaa sida loo doorto locationka ama goobtay ku wanaagsan tahay guryaha kirada, dhismayaasha ganacsiga, dhulalka bannaan, xarumaha dukaamada, xarumaha hoteelada. Sidoo kale wuxuu ka hadlayaa sida loo qiimeeyo hantida aad iibsanayso iyo sida loo yareeyo khatarada maalgashiga. Qoraaga buuggan buuggiisa wuxuu kusoo bandhigay waxa ugu yeeray The Big Six Formula oo ah 6 xeer oo muhiim u ah guusha hantida maguurtada. Qofkii 6dan xeer si sax ah u fahmaa, si dhabaan u dhaqangeliya, wuxuu dhisan doonaa hanti aad u fara badan. Qoraagu wuxuu aaminsan yahay fikradda ah haddii aad rabto inaad gaarto xorriyad dhaqaale, waa inaad marka hore dhisi kartaa hanti lacag ku shaqayn karta. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad barato sida suuqa real estate-ka u shaqeeyo, inaad lacagtaada geliso hantida maguurtada, inaad noqoto investor ama maalgashade caqli badan. Qoraaga buuggan buuggiisa wuxuu kala qaybiyey dhowr cutub, waxaana ugu muhiimsan cutubka ugu dambeeya ee buuggan kaasoo ugu hadlay The Big Six Formula. Haddii aan soo qaadano cutubka koowaad ee buuggan, qoraagu wuxuu si qoto dheer ugu hadlay fahamka dhabta ah ee income propertieska ama dakhliga hantida maguurtada laga helo. Qoraaga cutubkan wuxuu ku sharxay in dadka intooda badan ay u arkaan guri meel lagu noolaado oo keliya, halka dadka hantida samaystay u arkaan guryaha il dhaqaale oo si joogta ah lacag u dhalin karta. Taasi waa farqiga ugu weyn ee u dhexeeya qofka caadiga ah iyo qofka maskaxda maalgashiga leh. Marka qofka caadiga ah uu guri iibsan rabo, badanaa wuxuu ka fikiraa muuqaalka guud ee guriga, laakiin maalqabeennada waxay marka hore eegaan sida ay gurigaas lacag ugu soo saari karaan. Waxay isweydiiyaan inta lacag ay kirada ka soo geli kartaa, qiimaha gurigaas mustaqbalka uu yeelan karo, iyo sida hantidaas ay u kordhin karto xorriyaddooda dhaqaale. Sidaas darteed, guriga ma noqdo oo keliya meel lagu hoydo, balse wuxuu noqon karaa hanti shaqaysa oo maalin kasta dakhli joogta ah dhalisa. Income property-ga waxaa ka mid ah guryaha kirada laga qaato, apartamentyada, dhismayaasha ganacsiga, hoteelada, ofisyada iyo waxyaabaha la midka ah. Intaanaan soo sheegnay waxay ku keeni karaan lacag si joogta ah kuu soo gasha. Sidoo kale waxaa kor u kici kara qiimahooda mustaqbalka, waxaadna ka heli kartaa faa'iido muddo dheer ah. Markaana isla fiirino cutubka labaad ee buuggan. Cutubka labaad ee buuggan wuxuu ka hadlayaa sida loo doorto hantida maguurtada ee wanaagsan iyo sida maalgeliyaha uu qiimeyn karo guriga ama dhismaha uu rabo inuu iibsado. Qoraa wuxuu sheegay in hantida wanaagsan aysan ku xirnayn quruxda dhismaha oo keliya, balse sidoo kale ku xiran tahay goobta uu ku yaalo, dukumiintiga guriga, ammaanka deegaanka, dadka deegaanka degan, dayactirka uu ka rabo, heerka kirada, iyo inuu ahaado mid qiimihiisa kor u kici kara mustaqbalka. Cutubkan waxaad ku baran doontaa in markaad iibsanayso hanti maguurta ah ay jiraan waxyaabo badan oo muhiim ah oo laga fiiriyo ka hor inta aadan gaarin go'aanka iibsashada. Waxaa ka mid ah in la eego goobta uu ku yaalo dhismaha, sababtoo ah locationka wanaagsan wuxuu kordhiyaa qiimaha hantida mustaqbalka. Sidoo kale, haddii aad gadanayso guri dhisan, waxaa la eegaa tayada dhismaha, xaaladda guud ee dhismaha, iyo inta qarash ee dayactirka kaaga bixi kara. Qoraaga buuggan wuxuu sidoo kale sheegay in maalgeliyaha caqliga badan uu sidoo kale fiiriyo deegaanka dadka ama dadka degan deegaanka, iyo sidoo kale kiraystayaasha dhismaha, sababtoo ah kiraystaha wanaagsan waxaa si nadiif ah ugu heli kartaa lacagta kiradaada. Waxaa kale muhiim ah in la fahmo inta lacag ee bishii ku soo gelin karta hantidaad iibsatay iyo inta qarash kaaga bixi karta si aad u ogaato faa'iidada saxda ah. Tusaale, haddii kirada guriga bishii kaaga soo xarootay gaarayso $2,000, kharashkaad guriga ku bixinaysana uu gaaro $1,000, markaas waxaad faa'iidi doontaa $1,000. Qoraaga buuggan wuxuu dhahay investorka caqliga badan wuxuu diiradda saaraa faa'iidada uu ka heli karo hantida maguurtada ah ee diiradda ma saaro muuqaalka kore ee hantida. Cutubkan wuxuu akhristaha ku baran karaa inay muhiim tahay inaan lagu degdegin iibka hantida ama iibka guryaha, balse in la sameeyo baaritaano iyo faham buuxa ka hor intaan go'aanka iibsashada la qaadan. Qoraaga buuggan wuxuu taageeray in maalgashadaha marka hore uu fahmo suuqa, isla markaana uu yeesho dulqaad si uu u helo hanti dhab ah oo uu faa'iido ka heli karo.
cutubka saddexaad ee buuggan qoraagu wuxuu si gaara ugu hadlay deynta ama wax loo yaqaano amaahda iyo sida loo isticmaalo si caqli leh. Qoraagu wuxuu aaminsan yahay in deynta aysan ahayn mar walba shay xun, balse haddii si saxa loo adeegsado ay noqon karto aalad qofka ka caawisa inuu dhisto hanti weyn uuna gaaro xorriyad dhaqaale. Qoraaga buuggan wuxuu sheegay in maalqabeeno badan aysan hantidooda ku dhisin lacag ay ayaga si shakhsiyan u leeyihiin, balse ay adeegsadeen deyn ama amaah qorshaysan oo ay dadka kale ka soo qaateen si ay u iibsadaan hanti u soo saarta dakhli. Marka qofka lacag deen uu ku iibsado hanti lacag u soo saari karta bil walba, sida guri kira joogta uu ka helayo, lacagta ka soo baxda kirada guriga ayuu ku bixin karaa deenta uu soo qaatay, halka hantida uu gatay qiimaheeda ay sii kordhayso muddo kadib. Qoraagu wuxuu aad uga digay deenta badan ee aan qorshaysnayn. Wuxuu sheegay in dadka qaar ay qaataan deyn aad u badan iyagoon si fiican u xisaabin khatarta kaga imaan karta. Taasi ayaana ku keeni karta dhibaato dhaqaale iyo cadaadis daran. Deynta leh dulsaarka sare ama lacag bixinta adag waxay qofka ku keeni kartaa xaalad uu ku waayi karo hantidiisa oo dhan. Cutubkan qoraaga buugga wuxuu diiradda ku saaray muhiimadda ay leedahay in qofka uu fahmo awooddiisa dhaqaale ka hor inta uusan deyn qaadan. Micnaha in qofka uu xisaabiyo inta lacag ee sida joogtada u soo geli karta bil walba iyo inta qarash laga rabo inuu bixiyo, iyo sidoo kale haddii hantida uu qofka iibsanayo ay dhab ahaan awood u leedahay inay bixiso deynta la soo qaaday. Qoraaga buugga wuxuu sheegay in deynta ay noqon karto saaxiibka iyo cudurka qofka, iyadoo ku xirnaan doonto sida uu qofka u isticmaalo. Haddii deynta si qorshaysan loo maareeyo waxay dedejin kartaa kobaca hantidaada, laakiin haddii aan si wanaagsan loo qorsheyn waxay noqon kartaa sababta ugu weyn ee fashilka maalgashigaaga keena. Cutubka afraad ee buuggan qoraagu wuxuu diiradda ku saaray sida loo maamulo hantida si ay faa'iido joogto ah u keento. Qoraagu wuxuu sheegay in iibsashada hanti wanaagsan oo keliya aysan ku filnayn guusha maalgashiga, balse maamulka wanaagsan uu yahay waxa ilaaliya hantida iyo dakhliga ka soo baxa. Qoraaga buuggan wuxuu dhahay, hanti wanaagsan oo lagu daray maamul xun waxaa ka dhasha khasaaro. Taasi micnaheedu waxay tahay haddii aad iibsato dhismo cusub oo meel wanaagsan ku yaala, haddii aan si fiican loo maamulin waxaa dhici kartaa inuu hoos u dhaco qiimaha hantida ama aan laga helin faa'iido aad u badan. Maamulka wanaagsan wuxuu si taxaddar leh u doortaa kiraystaha wanaagsan oo wakhtiga saxda ku bixiya kirada, isla markaana ilaaliya hantida. Tani waxay yareynaysaa dhibaatooyinka joogtada iyo qarashaadka aan loo baahnayn bixintooda. Sidoo kale maamulka wanaagsan wuxuu ilaaliyaa hantida si ay mar walba u ahaato mid nadiif ah, shaqaynaysa, isla markaana soo jiidata dadka doonaya inay kiraystaan. Dayactirka joogtada ah iyo daryeelka hantida waxay kordhiyaan qiimaha hantida mustaqbalka. Qoraagu wuxuu sidoo kale ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la yareeyo bixinta kharashaadka aan muhiimka ahayn. Maamulka wanaagsan ee xirfadda leh waxay raadiyaan siyaabo ay ku dhimi karaan kharashaadka badan, sida qarashka korontada, qarashka dayactirka iyo adeegyada kale, ayagoo tayada hantidaas aysan hoos u dhigayn. Cutubkan wuxuu akhristaa ku baran karaa in maamulka wanaagsan uu yahay furaha lagu ilaaliyo hantida iyo maalgashiga muddada dheer. Cutubka shanaad ee buuggan qoraagu wuxuu uga hadlay khatarta iyo qaladaadka ay sameeyaan maalgashayaasha. Qoraaga buuggan wuxuu sharxay in maalgashigu uusan ahayn meel lagu degdego ama lagu gaaro go'aano aan laga fiirsan, sababtoo ah qalad yar ayaa sababi kara khasaaro aad u weyn. Qoraagu wuxuu sheegay in khaladaadka ugu badan ee maalgashiga uu galo inay ka imaadaan iibsashada degdega ah, cilmi baaris la'aan, iyo suuqa oo aan si fiican loo fahmin. Dad badan waxay arkaan hanti qurux badan ama qiimo jaban kadibna si dhaqsi leh ayay ku iibsadaan iyagoo aan baaritaan ku filan ku samayn. Taasi waxay marar badan keeni kartaa inay la kulmaan dhibaatooyin qarsoon sida dukumentiyo aan sax ahayn, dayactir badan, kiraystayaal xun, ama dhul aan mustaqbal wanaagsan lahayn. Sidoo kale qoraaga buuggan wuxuu carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay fahamka suuqa. Maalgashadaha aan fahamsanayn xaaladda suuqa, qiimaha guryaha, qiimaha dhulalka, iyo baahida dadka deegaanka wuxuu samayn karaa go'aano khaldan. Suuqa mar walba wuu isbedelaa, sidaas darteed qofka maalgashadaha ah waa inuu noqdaa qof xog ururiya ka hor intausan lacagtiisa maalgelin. Qoraaga buuggan wuxuu dhahay, maalgashada caqliga badan ma raadiyo lacag degdeg uu ku sameeyo, balse wuxuu si deggan u dhisaa hanti muddo dheer jiri karta. Hadalkan wuxuu muujinayaa in guusha maalgashiga aysan ku imaan si degdeg ah, balse ay ku imaado dulqaad, qorshayn, iyo go'aano xikmad ku dhisan. Dadka isku daya inay si dhaqsi leh lacag u helaan waxay badanaan galaan khataro badan oo ugu dambeyn ku sababi kara khasaaro weyn. Cutubkan wuxuu qisaa ku baran karaa in khatarta maalgashiga ay mar walba jiri karto, laakiin maalgashadaha caqliga badan waa kan si fiican u maareeya khatartaas. Maalgashadaha wanaagsan wuxuu sameeyaa cilmi baaris, wuxuu la tashtaa dadka khibradda leh,
wuxuuna qaataa go'aan ku dhisan xaqiiqo iyo xisaab. cutubka lixaad ee buuggan waa cutubka ugu muhiimsan. qoraaga buuggan cutubkan wuxuu ku sharxay Big Six Formula oo ah 6 xeer oo muhiim u ah qof walboo raba inuu ku guulaysto maalgelinta guryaha iyo dhismayaasha dakhliga laga helo. xeerarka waxaa ugu horeeya goobta ama locationka. goobta aad rabto inaad wax ka iibsato waa shayga ugu muhiimsan ee qiimaha guriga ama dhulka kordhin kara. haddii aad iibsato guri ku yaala meel wanaagsan, dad badan ayaa hamiya inay degaan ama ay kireystaan. qiimaha dhulka ama hantida ayaa si fudud kor ugu kaca, lacagta kiradana way korortaa. tusaale, guri ku yaala meel ganacsi, iskuulo wanaagsan ama waddooyin muhiima leh wuxuu ka faa'iido badan yahay guri ku yaala meel aad u fog. qoraagu wuxuu dhahay, guriga quruxda badan balse meel xun ku yaala waxaa ka wanaagsan guri normal ah oo meel wanaagsan ku yaala. xeerka labaad, socodka lacagta. waxaa loola jeedaa dakhliga ku soo gala iyo qarashka aad bixiso. nolosha iyo ganacsigaba waxaa saldhig u ah sidaad u maamusho lacagta ku soo gasha iyo midda kaa baxda. dadka inta badan waxay xoogga saaraan inta lacag ay helaan, laakiin dadka caqliga badan waxay si gaara u eegaan halkay lacagtooda ku socoto. haddii kharashaadka aad bixinayso ay ka bataan dakhligaaga, mar walba cadaadis dhaqaale ayaad dareemi doontaa, xitaa haddii aad lacag badan aad hesho. laakiin haddii si wanaagsan u maamusho kharashaadkaaga, waxaad awood u yeelan doontaa inaad lacag adkaysato, maalgashato oo aad mustaqbal wanaagsan aad dhisato. xeerkan wuxuu ku barayaa inaad diiradda saarto sidii aad u siyaadin lahayd dakhligaaga. tusaale, waxaad iibsatay guri, waxaad ka qaadataa kiro $1,500. waxaa lacag dhan $900 kaaga baxda dayactirka guriga, canshuurta iyo nolol maalmeedkaaga. inta ku soo hartay oo ah $600 ayaa ah faa'iidada saxda ah ee aad gurigaas ka heshay. $600 isku day inaad kaysato oo aad maalgashi kale ku samaysato si aad dakhli ugu hesho, kadibna aad u sii maalgeliso. maalgashiga wanaagsan waa mid ka ilaaliya khasaaraha, bil walbana aad ka hesho dakhli joogto ah. xeerka saddexaad, kororka qiimaha hantida wakhti kadib. xeerkan wuxuu tilmaamayaa in dadka hodanka ku noqday hantida maguurtada ah ay faa'iido weyn ka helaan kororka qiimaha muddada dheer ee guryaha, dhulalka iyo waxyaabaha la midka ah. tusaale, guri aad maanta ku iibsatay $50,000, 5 sano kadib qiimaha gurigaas wuxuu gaari karaa $90,000. waxaad muddadaas aad sugtay ka heli kartaa faa'iido dhan $40,000. qiimaha guryaha waxaa kor u qaadaa sababo ay ka mid yihiin magaalada oo horumarta, dadka oo ku bata xaafadda, ganacsiga oo kobca, waddooyin iyo adeegyo cusub oo lagu soo kordhiyo xaafadda aad guriga ka iibsatay. xeerka afraad, isticmaalka deynta si caqli leh. micnaha inaad lacag deynaad ka soo qaadato bangi ama shakhsi si aad ugu iibsato hanti faa'iida kuu keeni karta mustaqbalka. tusaale, haddii aad haysato $20,000, bangigana aad ka soo qaadato $80,000, waxaad ku iibsan kartaa hanti qiimeedu gaarayso $100,000. haddii hantidaad iibsatay qiimeedu kor u kaco, waxaad halkaas ka samayn kartaa faa'iido waali ah, waxaadna si fudud isaga gudi kartaa deyntaad soo qaadatay. xeerka shanaad, faa'iidooyinka barashada canshuurta. qoraaga buuggan wuxuu sheegay in dadka hodanka aysan keliya diiradda saarin inay lacag badan sameeyaan, balse ay sidoo kale fahamsan yihiin sida sharciyada canshuurta loogu faa'iidaysto si sax ah oo xalaal ah. dadka hodanka ah waxay bartaan nidaamka canshuurta, waxayna isticmaalaan fursadaha uu sharciga ogol yahay in laga faa'iidaysto si ay u yareeyaan qarashaadka ay bixiyaan, una kordhiyaan hantidooda. maalgashayaasha caqliga badan waxay ogaadeen in aqoonta canshuurta ay muhiim u tahay kobaca dhaqaalaha. halkii lacag badan ay ku bixin lahaayeen canshuurta, waxay raadiyaan habab sharci ah oo ay ku ilaalin karaan dakhligooda iyo faa'iidooyinka ay sameeyaan. taasina waxay ka caawisaa inay si tartiib tartiiba u dhistaan hanti xoog badan iyo mustaqbal dhaqaaleed wanaagsan. xeerka lixaad, dhismaha hantida muddada dheer ah. dhismaha hantida muddada dheer waxay u baahan tahay dulqaad, qorshayn iyo go'aano adag. dad badan waxay raadiyaan faa'iido degdeg ah, laakiin dadka si dhaba u raadiya maalqabeennimada waxay fahamsan yihiin in hantida weyn lagu dhiso waqti iyo joogteen. qoraaga buuggan wuxuu tilmaamay in maalgashiga wanaagsan uu yahay mid qofka si tartiib tartiiba u kordhin karaa qiimaha hantidiisa iyo dakhligiisa mustaqbalka. qofka dhisaya hantida muddada dheer qaadata maniga jabo marka uu arko caqabado yaryar ama isbedelada suuqa. wuxuu diiradda saaraa hadafkiisa fog, wuxuuna fahamsan yahay in go'aanada saxda ay maanta u qaato ay noqon karaan guushiisa beri. marka qofka yeesho aragti fog oo si xigmad leh u maarayo hantidiisa, wuxuu abuuran karaa nolol dhaqaale oo xasiloon. gebagabada buuggan wuxuu ku habboon yahay qof kasta oo raba inuu barto real estate-ka ama hantida maguurtada ah.
dadka rabaa inay ka macaashaan guryaha iyo nolol ka bannaan iyo sidoo kale ganacsatada. mawduucina maanta halkan ayaan ku ekeyn doonaa. intii mawduuc kale ama buug kale. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.